السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أخيارتي إدغي سنيساي كانال كينا فكرة غناسي. مشروع وليبا oo la aasaasay waxa uu leeyahay khasaaro iyo faa'iido. Muuqaalkan waxaan ku sharaxi doonaa go'aamada aad qaadan doontid ma yihiin mid faa'iido leh ama mid khasaaro ku keeni doono. Waxaan tusaale ugu qaadanaynaa nin lagu magacaabo Ronald Wayne. aan u gudagalno qisada. Toddobaadkii qarnigii aan soo dhaafnay wuxuu Ronald Wayne ahaa shaqaale ka shaqeeyo shirkad lagu magacaabo Atari ee soo saarta waxyaabaha la isku maaweeliyo gameka. waxay isbarteen laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaasoo xiiseynaya tiknoolajiyadda. waxay Ronald Wayne u soo bandhigeen in uu shirkad kula noqdo 10% shirkad cusub oo ay sameeyeen taasoo soo saaraysa kombiyuutarada. Ronald Wayne waa uu ku qancay arrintaas. halkaasi ayaa lagu kala saxiixday heshiiska. wuxuu sidoo kale garab ku siiyay labadii dhalinyaro khibradda uu u lahaa aasaasidda shirkadaha yaryar. 1976 ayaa la soo saaray kombiyuutarkii ugu horeeyay, balse kuma aysan qancin macaamiisha. waxaa hoos u dhacay xamaasadda ay u lahaayeen shirkaddan. labadii dhalinyaro ayaa bilaabay in ay lacag soo deynsadaan si ay u horumariyaan shirkadooda. Ronald Wayne ayaa ka baqay deynta in isaga ay ku soo biyo shubato, wuxuuna go'aansaday in uu ka baxo sharaakadii uu la lahaa labadii dhalinyaro. sidoo kale wuxuu cadeeyay in labadan dhalinyaro aysan wax guul ah gaaraynin. labadii dhalinyaro ayaa isku dayay in ay ku qanciyaan in uusan sharaakada ka bixin, balse waa uu ka diiday. waxa uu qaatay lacag gaaraysa $800 oo u dhiganta saamiga uu lahaa, isagoo booskiisa ku iibsaday lacag gaaraysa $1,500. lacagahaas haddii la isku daro waxa ay gaarayaan $2,300. uu kala baxay booskii uu ku lahaa shirkadda Apple. muddo dheer iyo juhdi badan kadib, mashruucii yaraay wuxuu noqday shirkad weyn oo miisaaniyad ku leh suuqa, waana shirkadda Apple. nasiib darro, saamiga uu isaga iibiyay Ronald haatan waxa ay suuqa ka joogtaa $403 milyan. Ronald ayaa isku dayay in uu xiriir la sameeyo labadii dhalinyaro si ay shaqo uga siiyaan shirkadda, laakiin waa ay ka diideen. wuxuuna hadda ku nool yahay guri yar oo ku yaala xaafad ay degan yihiin dadka faqiirada, isagoo lacag ceer ah ka qaata dawladda. wuxuuna sheegay in uusan weligiisa iibsan wax soo saarka shirkadda Apple. Ronald ayaa noqday ninka ugu nasiibka xun dunida. daawade, mararka qaar go'aamada aad qaadanaysid waxay u baahan tahay inaad ku samaysid daraasad. go'aamadaada waxa ay noqon doonaan mid guul lagu gaaro ama waxa ay noqon doonaan mid khasaaro aad kula kulanto. waxaan filayaa muuqaalkan wax badan inaad ka faa'iideen. aad ayaad u mahadsantihiin.